بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد. marka hore caymisku waa qayb ka mid ah dhaqaalaha waddan walba uu leeyahay, waana qayb ka mid ah sektarada uu dhaqaalaha uu ku koro. caymisku marka aan tacriifkiisa soo koobno waxa weeyaan waa khatarta oo qofka laga yareynayo ama khatarta maaliyadeed ee qofka soo gaaraysa oo laga yareynayo iyadoona la suubinayo qaab ay bulshada iskaga kaashan karto in khatarta ay isla wadaagaan. marka xirfadda caymiska ama caymiska sidiisa dhanba marka la soo koobo waa weeyaan waa in la yareeyo khatarta dhaqaale ee qofka ganacsigiisa ama waddankaas soo gaarayso, sidoo kalena ay isku imaadaan bulshada si loo yareeyo khatartaasi. saas waa caymiska marka hore taariifkiisa. marka labaad soo u shaqeeyo waxa waaye wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan. qofka la caymiyaha ah waa qofka caymiska galayo, qofka wax cayminayo oo ah shirkadda caymiska, iyo waxa la cayminayo oo ah alaab ama gaadiid ahaato ama caafimaadka qofka ahaato iyo wixii lamid ah. qaybahaas isku tagay waxay suubsanayaan buul wax la yiraahdo. shirkadda caymisku shaqadeeda iyada waxa waaye inay buulkaas maamusho ama ay lacagtaas la isku keenay ay maamusho. qofka lacagta dhiibayana waxa weeyaan waa la caymiyaha oo asaga lacagtii sanadlaha dhiibaya. qofka muxuu ahaay waxa la cayminayana ama waa gaadiidkiisa ama waa caafimaadkiisa ama waa hantidiisa iyo wixii lamid ah. marka qaab noocaas u shaqeeya intaasoo la isku imaaday ayay khataraha iska waayeen. marka dad kala duwan isku imaanayo shirkadda hebel caymiskani ku jirta shirkadda hebel caymis, marka buul waaye saasaa marka loo maamulaa inta badan. shirkadda caymiska iyada waxay u shaqeysaa waxay isku keentaa buulkaasi dadka ka qayb qaadan lahaay. tusaale 100 qof 500 qof 1000 qof iyo wixii lamid ah. lacagtaas buulkaas lagu shubay ayay maamulaysaa, operator waaye shirkadda caymiska. khatartaas marka iyada marka muxuu ahay waxay siinaysaa marka in kooban ayaa qofka laga cayminaa. qofka wax walba oo khatar walba u geysto 100% ma ahan sida dadka qaar ay u fahansan yihiin caymiska in laga wada ka fargareyna. waxaa laga ka fargareynaa in xadidan. waxaa lagu leeyahay sanadkan tusaale ahaan caymisaa gashay caafimaad boqolkiiba muxuu ahaay 80 ama 50 ama tusaale ahaan waxaa dhiibtay lacag $1000 sanadkaa dhiibtay. waxaa lagu leeyahay bukaan socodka waxaa lagaa ka fargareynaa $5,000, halka bukaan jiifka lagaa ka fargareynaa $10,000. wixii ka badan haddaad dhaaftid adiga marka jeebkaaga ka dhiibaya. marka waa wax xadidan waaye. sanadkiina hal maraa la qaadaa. saas ayuu u shaqeeyaa caymiska. waa su'aal aad muhiim ah. taas waxay hoos imaanaysaa caymiska islaamka iyo caymiska ganacsiga waxa farqiga u dhexeeya ama conventional insurance-ga ama caymiska islaamka ee takaafulka loo yaqaano. caymiska islaamka qaabka u shaqeeya isaga waxa waaye waa iskaashi camal waaye. micnaha adigaa lacag dhiibaayo, anigaa lacag dhiibaayo, qofkaa lacag dhiibaayo, meelaa la iskugu keenay. waa sida qaaraanka Soomaalida ay u isticmaasho kale. waxaa la suubinaa marka muxuu ahaay haddii ilaahay kuu roon yahay qofkii markaas u baahanaa wax laga siinaa. wixii soo haraa marka laga reebo wixii soo haray lacagta khidmadda ah ee shirkadda caymiska ay goosanayso, wax kale caymiska islaamka wuxuu qabaa in loo celsho qofkii lacagta marka hore dhiibay. sidoo kale midka conventionalka insurance-gana waxa weeyaan haddii aad dhiibtid wuxuu ku xiran yahay asaga buying and selling, micnaha waa iibsanaysaa ama waa lagaa iibinaa. haddii aad lacagtaas dhiibtid hadday khatar ku soo gaarin waa lagaa ka fargarin, haddii khatar ku soo gaari weysana lacagtaas ma soo noqonayso. mabaadi'da ugu waaweyn ee caymisku ku taagan yahay waxaa kow ka ah iskaashiga. waa iskaashi bulshadu isku imaanayso, iskaga kaashanayso khatar soo food leh. khatartaas hadday dhacday iyo hadday dhici weysaba marka waxa ugu weyn caymiska mabaadi'diisa ugu weyn waxa weeyaan khatartaas la iska kaashado. sidoo kale wuxuu taageeraa mabda ugu weyn oo ah caymisku wuxuu taageeraa dhaqaalaha waddankaas ayuu taageeraa. waana mabaadi'da ugu waaweyn ee caymisku uu leeyahay. faa'iidooyin badan ayuu leeyahay caymisku. kow waxaa ka ah qofka caymiska ku jiro maskaxiyan waa qof degan. tusaale aniga maanta mushaarkayga hadduu in yaroo iska kooban uu yahay
khatar weyn oo caafimaad ama jireed ama wax kale hadday soo gaaraan mana iska dhiibi karin. Marka qofkii walwal badan ama ku abuurmayso, taas waa lagu waaniyo inta badan dadka loo shaqeeyo inay shaqaalahooda ay ka dhiibaan caymis ama caymis ay geliyaan. qofka marka wuxuu helaa maskaxiyan ayuu u degnaanaa markii qofku caymis ku jiro, maxaa yeele wax walba uu ku dhaco wuxuu og yahay inay jirto ama uu ku jiro caymis. marka qofkii maskaxiyan ahaan ayuu u degnaanaa. midda labaad faa'iidada kale uu leeyahay caymisku waxaa ka mid ah shaqo abuurka ayuu suubiyaa, oo shirkadaha caymisku dad bay shaqaalaysiiyaan oo kala duwan. shaqo abuur aad u baahsan ayuu suubiyaa, taasi oo kor u qaadaysa dhaqaalihii waddanka. waxaa kaloo keenaa faa'iidooyinka ka mid ah inaad muxuu ahaa ka madax banaanaatid tolkaaga. tusaale ahaan Soomaali haddaan nahay qaaraan isku darnaa, marka waxaan ku tiirsanaa inta badan tolka. laakiin qofka markuu caymis ku jiro wuxuu og yahay in shirkadda caymiska ay ka dhiibayso wixii khatara ay soo gaarto. marka waxaa yaraanaysa marka ku tiirsanaanta uu ku tiirsanayo shakhsiyaad gooni ah, ama qaraabadiisa ahaato ama dad kale ha ahaato ama daris ahaato ama wixii lamid ahaato, waxyaabahaas oo dhan ayuu ka baxayaa. sidoo kale waxaa abuurmaysa wadaniyad. qofkii muxuu ahaa markii uu ku tiirsanaado muxuu ahaa uusan tolkiisa ku tiirsanayn, uusan qabiilkiisa aaminsanayn, oo wax walba uu ku dhaco uusan qabiilkiisa ula noqonayn, oo muxuu ahaa ula noqonayo shirkaddii caymiska waddanka. waxyaabaha faa'iidada leedahay waxaa ka mid ah in qofka uu dareemayo wadaniyad. su-aal aad muhiim ah waaye. sidaa ogtiin caymiska dhan lagu sheegayo qofku wuxuu bixinaa lacag kooban, inta badanna wuxuu helaa faa'iido ka badan lacagtaasi kooban uu baxshay. tusaale haddaad bixisay $1,000 sanadkii, waxaa laga yaabaa limitkaaga keliya bukaan socodka inuu yahay $5,000. marka waa farqiga u dhexeeya waa dareemi kartaa. intee ka imaanaya marka lacagtaas? tusaale haddii maanta dhibaato kusoo gaarto oo $1,000 aad bixisay, lacagta biilka isbitaalka kugu soo dalacdan $4,000 ay tahay, waxaa u dhexaysa farqi $3,000. $3,000 waxay ka imaanaysaa dadka kale ee buul kula jiray dhibaato aan soo gaarin ayaa lagaga qaadaa, saas lagugu daaweynaa. lacag ka dheeriha waaye, oo sababta waxa waaye waxaan waa iskaashi. macnaha buulkaas waxaa loogu talagalay qofkii dhibaato soo gaartay in laga daaweeyo ama dhaqaalihiis lagu kabo. haddii dhibaato kusoo gaari weysana dad kale oo qof kale oo walaalka ah dhibaato soo gaaraysaa. sidaasaa markaa la iskugu baalansin karayna. khatarta horta mar walbo wax horta xagga alle ku xiran waaye, oo wax oo anaka aan ognahay waxa dhacaya haddeertaan ama daqiiqadaha soo socdo ama meesha ku dhiman doono ama waxa nagu dhici doono markaa haddeertaan laamigaan u baxno ma garanayno, qof garanayno malaha. waxay marka ilaahay subxaana watacaala shaqo ku leeyahay waaye. laakiin haddii khatar soo wajahdo qofkaasi hadduu caymis ku jiro, waxaa shirkadda waajib ku ah in limitkii waxyaabaha lagu heshiiyey ee heshiiska ku qoran inay shirkaddu ay dhiibto. tusaale ahaan gaarigiisa hadday dhahday hadduu gaarigaasi dab u qabsado, gaariga aan dhiibaynaa boqolkiiba 80 qiimihiisii. haddii muxuu ahaa gaarigaasi dhibaato ama hadda magaaladan aan joogno kale dhibaatooyinka waaweyn waxaa waaye qaraxyada. kafar limid ay leedahay. marka haddii maraayadda ay kaa jabto qayb gooni lacag gooni ay leedahay, haddii muxuu ahaa gaarigaasi uu gubto sidoo kale lacag gooni ay leedahay. marka wax walba limid ay leeyihiin. marka shirkadda waajib waxaa ku ah marka wixii ay ballan qaaday inay dhiibto.